السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحريسي نبتقلي حقات نبي محمد صلى الله عليه وسلم أهلكيسا iyo asxaabtiisa dhamaantood. maanta insha Allah waxaan ka sheekayn doonaa qisada mid ka mid ah saxaabadii ugu sharafta badnaa ee islaamka, ninkii samirka iyo tawxiidka astaan u haayeen, mu'adinkii ugu horeeyay ee islaamka, Bilaal ibn Rabaah, Allah ka raali noqdee. qisadani waxayna tusaysaa sida iimaan adag, samir iyo kalsoonaanta Alle ay qofka uga dhigi karaan mid taariikhda ku reeba raad aan weligiis lumin. haddaba aan ku bilaawno qisada Bilaal ibn Rabaah radiyallahu anhu. Bilaal ibn Rabaah radiyallahu anhu wuxuu ka mid ahaa saxaabadii ugu fadliga badnaa ee rasuulka sallallahu alayhi wasallam. wuxuu ku dhashay magaalada Makka. aabihii waxaa la oran jiray Rabaah, hooyadiina waxaa la oran jiray Xamaama. waxay ahaayeen addoomo ugu lahaa Umayya ibn Khalaf oo ka mid ahaa madaxda gaalada Quraysh. markii Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam loo soo diray risaalada, Bilaal wuxuu ka mid noqday dadkii ugu horeeyay ee islaamka qaatay. markii Umayya ogaaday inuu muslim noqday, wuxuu bilaabay inuu si arxan daran u ciqaabo. wuxuu Bilaal u jiifin jiray saxaraha kuleel ee Makka. dhagax weyn laabta ayuu ka saari jiray isagoo ku leh ka noqo diinta Maxamed. laakiin Bilaal mar walba wuxuu ku celcelin jiray hal eray oo kaliya: axad axad, Alle waa mid kaliya. ciqaabta way sii adkaanaysay, laakiin iimaankiisu ma daciifin. maalin ayaa Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu arkay dhibaatada Bilaal lagu haayo. wuxuu la hadlay Umayya ibn Khalaf, wuxuuna ka iibsaday Bilaal oo lacag badan uga iibsaday. dabadeedna xorriyadiisa ayuu siiyey isagoo u sameeyay dar Alle. Bilaal markii la xoreeyay wuxuu si buuxda ula joogay Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam. wuxuu ka qayb galay dagaalada Badar, Uhud, Khandaq iyo kuwa kale. dagaalkii Badar, Umayya ibn Khalaf ninkii sida daran u dili jiray Bilaal ayaa lagu dilay dagaalka. markii muslimiinta qabsadeen Makka sanadkii 8 ee Hijriga, Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu amray Bilaal inuu fuulo dusha Kacbada oo uu aadaanka ka yeero. tani waxay ahayd sharaf weyn oo Alle siiyay adoonkii hore loo duleyn jiray. Bilaal wuxuu noqday mu'adinkii ugu horeeyay ee islaamka. codkiisa quruxda badan ayaa dadka ugu yeeri jiray salaada. markii Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam geeriyooday, Bilaal aad buu u murugooday. markii uu gaaray weera aadanka ashhadu anna Muhammadan rasuulullah, uu ooyi jiray, mana awoodi jirin inuu sii wado aadaanka. sidaas darteed wuxuu ka codsaday khaliif Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu inuu ogolaado inuu Shaam u guuro si uu jidka Alle u jihaado. muddo kadib ayuu Madiina dib ugu yimid. Xasan iyo Xuseen radiyallahu anhu oo ahaa awlaadii Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam ayaa ka codsaday inuu hal mar aadaanka yeero. markii Bilaal codkiisa kor u qaaday, dadkii Madiina oo dhan way ooyeen, iyagoo xusuustay maalmaha uu Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam noolaa. Bilaal ibn Rabaah wuxuu ku geeriyooday magaalada Dimashq qiyaastii sanadka 20 Hijri. wuxuu ka tagay taariikh weyn oo muujinaysa samirka, iimaanka adag, tawxiidka iyo jacaylka rasuulka sallallahu alayhi wasallam.